aan mudnaan gaar ah siino caafimaadka dhimirka iyo badqabka bulshadeena waa halku dhaga munaasabadan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhimirka adduunka oo dunida oo dhan laga xuso maanta oo kale taas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya oo kaashanaysa WHO. munaasabadan oo ay ka qayb galeen madaxda wasaaradda caafimaadka, dhaqaatiir, bahda caafimaadka iyo marti sharaf kala duwan ayaa mas'uuliyiinta iyo dhaqaatiirta ka hadashay waxay ku dheeraadeen ka hadalka qaabkii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka kala duwan oo ay wajahaan kumanaan bukaan oo la xanuunsanayo cudurrada ku dhaca dhimirka kuwaas oo la kulma takoor, xadgudubyo maskaxeed iyo kuwo jireed iyagoo aan helin daryeel iyo adeeg caafimaad oo ku filan. diinteena muqaddaska ah daryeel ayay siisay in dhimirka la ilaaliyo oo maskaxda la ilaaliyo. waxay ku dartay 5 shay oo shariicadu ay waardiyeyso. qofka diintiisa la waardiyeynaya, qofka naftiisa baa la waardiyeynaya, qofka aqligiisa la waardiyeynaya. waxaana looga baahan yahay si aan u helno bulsho bad qabta ama well-being ah inaan dadaal badan sameyno. sidaas darteedaan maanta ama adduunka dhanba u doortay halku dhig gaar ah oo ah inaan helno maxaa la yiraahdaa ama aan budnaanta koobaad siino iyo labaad iyo saddexaad caafimaadka dhimirka iyo badqabka bulshadeena. dhibaatada ugu weyn oo dalka haysata inaga gacanteena ku iibsanayna sida rag hore u sheegeen. waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah oo fariintan faray walaashay xildhibaan wasiir Maryan waxa rabaa dawladda kaalinteedii ayaa loo baahan yahay oo waliba sharciyeysan. waayo container tabu oo degada laga soo dejiyay markaad aragtid waxa inoo haray ma jiraan. wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale ayaa tilmaamay inay ka wasaarad ahaan ka hortagi doonaan isticmaalka maandooriyaha oo kamid ah waxyaabaha sababa xanuunada ku dhaca dhimirka isla markaana ay diyaariyaan sharciyo kala duwan. daroogada dadka isduraya maadaama mental health issue problems ay keenayso wasaaradda caafimaadka act waxay keentay looga hortagi karo ayadoo la isticmaalayo ministerial level iyo booliiska gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada ee golaha wasiirada horgeysay ayadoo ay ka doodeyso qaabkii loo dadajin lahaa ama loo horumarin lahaa caafimaadka. waxaan kaloo runtii boorinayaa in wasaaradda iyo qaybteeda mental health-ga ay zero hogaaminayso in already ay diyaariyeen shuruucdii iyo qawaaniintii dalka policygiisa u sameyn lahayd mental health-ga. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen oo munaasabada soo xirtay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in si wadajir loo wajaho dhibaatada uu bulshada ku hayo xanuunka dhimirka. wasaaradda sida loo sheegay waaye muxuu ahay qorshaheeda siyaasadeed wuxuu ku wajahan yahay barnaamijkan caafimaadka in muxuu ahaa la gaarsiiyo heer kasta, isbitaal ha noqdo, MCH ha noqdo, inay qayb ku lahaadaan oo counseling ah oo dadkii lagu waciyo muxuu ahaa lagu daaweeyo. waxaan rajaynayaa sanadka dambe hadduu ilaahay yiraahdo inaan halkaas soo fadhiisano madaxweynaha. hadduu madaxweynaha in case maqan yahay ra'iisul wasaaraha uu imaado anaa ballan qaaday hadduu ilaahay yiraahdo. sababtoo ah waa campaign ma aha wax loo dheeraysan karo. waxa dhallinyaradeenna ay ku socoto wax yar ma ahan. annagana wixii dhinaceena ah diyaaraan lahay waa qabanaynaa insha Allah. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.